بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. walaalayaal waad aragtaan arigeenni waxaasu daaqaya qashinkaas magaagtaa lagu daadshay wuu imanayaa afku iska gashanaya waxba moodaya dadka mar walba waxaanu ku haynaa war qashinka meesha loogu talagalay geeyo fogeeye ma garanaysaa oo midda kale qashinka in lagubo weeyaan wixii xun oo maaragtay bacaha iyo wax la midka ah waxaa meesha daadsan arkaysaa cadcad aad u jeedaan oo dhan waxa weeye waa qashinkii magaalada oo baabuurta meel dhaxangeed ku daadiyey weeyaan ma garanaysaa dhibaata dadka Soomaaliya haysata dawlad maaragtay iyagii dadkii meeshadii haddaan dawladda jirin inay intooda kale ismaqlaan bay ahayd oo waxay qaban karaan iyo qabtaan oo wanaagooda ka shaqeeyaan baa la rabay wadantooda ka shaqeeyaan waxaan dhib ahayn laga shaqeyn maayo oo yacni dadkii dawlad baa wax qaban lahayd oo qofkii dhib geysta qaban lahayd oo xiri lahayd kii wanaagsan la shaqeyn lahayd oo wax la qaban lahayd isaguna la shaqeyn lahaa laakiin haddaan dawladda jirin kii wanaagsan si kasta ha u qayliyo waxbaa ka dhegaysanaya male hadduu wax lagaa dhegaysan waayo haddee maxamed sabeen kadib hadal iska tag bay noqonaysa laakiin markii dawladda jirdho wixii dhib sameeya oo la kari waayo tallaabay ka qaadaysa xabsi bay dhigaysaa maxkamad bay saaraysaa meel bay ku ogaanaysaa dadkay ka haynaysaa dhibkiisa meel bay ku ogaanaysaa ilaa laga soo edbiyo ma garanaysaa war marka haddaad Soomaalinahay walaalayaal aynu dawladda sayid u heli lahayn aynu si dhibkaan ka baxnay dawladdu waxaan ahayn wax lagu maxallin kare maamul goboleed lagu maxallin karo iyo maartay qaybo iyo reer hebel iyo tuulo hebel oo magaalo gaar noqotay oo qolo gaar noqotay waxba lagu maxallin karo waxa lagu xallin karaa waxay tahay inaan kala baxno waxba lagu maxallin karo oo kala fogaano ama isdayno ama laba dawlad kala noqono saada walaalaha Soomaaliland oo kale ay leeyihiin wax la mid xal ma noqonayso waayo waxa weeyaan ma khaldaneen dadkii awalba gobonimada raadinayay oo shanta Soomaaliyeed raadinayay ama midnimada raadinayay ma ay khaldanayn laakiin dib baa khaladku ka yimid sababtoo ah dadku inay mid noqdaan oo midoobaan ilaahayna quraankiisa waa nagu sheegay subxaanahu wa tacaala wactasimu bihablillahi jamiican walaa tafarraquu sidoo kale walaalayaal inaguna waxa weeyaan midnimo iyo dad badan isu tagay cudud weeyaan ninkii waayeelka ahay Soomaaliyeed ee wiilasha 10 ka dhalay uu yeerayo ulaha maandayaal 10 ulood la kaalay 10 ulood markay keeneenna 10kii ulood buu wuxuu yiri isku qabto isku xira waa la isku xiray 10kii ulood baa la isku xiray waxaa la dabcay waxaa la yiri jabiya nima markiisa inta qaata ha jabiyo bal 10 ka isku tuuban nin walba markiisa ha qaato bal soo dayo jabiyo 10kii oo isku xiray nin walba waa qaato 10 ka mid waa jira jaban waay wuxuu yiri marka kala bixiya kala fura waa la kala furay nin walba uu jabi buu yiri marka nin kasta waa jabin karaa haddaa isku duubnaataan saasaad ahaanaysaa waad kaanaysaa saas ku yiri ninka waayeelka Soomaaliya khayr Allah siiyo jannadina Allah geeyo haddaad se kala baxdaan oo kala baxdaan oo kala qaybsantaan saasaa mid walba gooni loogu cunayaa loogu burburinaya marka aqligu diinta iyo aqligu kulli waa isleeyihiin walaalayaal waa isleeyihiin waxa weeyaan nabiguna sallallahu alayhi wasallam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu ba'duhum ba'da mu'minku min kale wuxuu yahay sida dhismo oo kale qaarba qaar kale adkaynayo guriga hadduu qaarkiis la dumiyo qaar kalena waa kala badumaya guriga waa iscelinaya oo tiirarku wuxuu waa isaya marka isku xiran wax walba saasoo kale weeyaan walaalayaal waxa weeyaan marka aan danteena garanno taariikhda maanta waxa weeye 5 bisha Maaris 2025 weeyaan taariikhda hijriguna waxa weeyaan iyaduna 4 bisha Shacbaan 1445 hijriga weeye وبالله التوفيق والسلام عليكم وعبد المجيد محمد علي بلي مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.